بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan dhegaysanayay oo daawanayay xaflad in Cabdiqani Allah u naxariistay loo qabtay oo uu ka hadlayo faratoon. wuxuu yiri dagaalku dagaal dhulbahante ka dhashay maaha, waa dagaal daarood ka dhashay. qabeenta وقول يلا بعد تقف بعد البلد تلقى قدلي حدراوي بقى ودبي ود جوكتي halka weeye halkay ka kacday jamaahiirtu kadibna 18 maalmood baa dhulbahanta dagaalamayay waadigii ina cambaashe la joogayo subaxii leedin soo weerarayna waadigii cararay 18 maalmood kadib haddii walaalahood u soo gurmadeen SSC sawkan muuse ka keenaya gurmadka gabili arabsiyo berbera boorame sayla jabuuti waxaas miyaanay kuu muuqan faratoono kuma muuqdaan nin hadduu seexdo oo soo tooso waa isagii. xalqadan waxaa la yidhaahdaa faratooniga gaarsiiya. wax kasta faratoonow isku day, arrintani waa arrin gacanta ka baxday. ilaahay baa noo wata wali qodobka intaasaan ku dhaafayaa ee faratoon iga gaarsiiya. ina Cabdiqani ina garaad Cabdiqani aabbaha iyo ina cigaal maalintay kala dhaqaaqeen oo garaad Cabdiqani Puntland dhisay qaangaar baad haydo intaasaad leekayde sababtii ay ku kala tageen maxay ahayd? haddaadan garanayn cali daacuun telefoon u soo diranaa kuu sheegaya. hadduu muuse kuugu yeedhay qaybi oo xukun war waxba kama qaban kartid. arrin bahra same maaha, arrin garaad jaamac garaad cali maaha, waa arrin SSC dhulbahanta weeyaan. war naftaada been haw sheegi, taariikh xumana naftaada haw soo hooyo. dhiig daadanayana ma celin kartid oo waxba kama qaban kartid. wariga gaarsiiya ina garaad Cabdiqani waxaa soo haray saldanada dee aabbaha ma lahayn. waxaa lahaa oo uu garaad Cabdiqani u sii hayay oo waqtigaa inan yarahaa garaad jaamac. waa idinkii ku kala calaf qaaday oo bahra samee runta kuu sheegtay. goormaad soo noolaatay? muuse yaanu been kuu sheegin. warkaana ina Cabdiqani iga gaarsiiya. الحقيقة madaxweyne xasan sheekh maxamuud gacanta waxba uguma jiraan, muuse biixina gacanta wax uguma jiraan, nin la yiraahdo ina cumar geelaa wax ugu jiraan. waxaa kuu cadaynaysaa ismadii uu u yeedhay casumay go'aan waa la gaari kari waayo waa kaa Jabuuti aaday. waa markhaati. sidaa awgeed garaadada ku sugan xamar ee la casumay idaa dacaka ajiib waad mahadsantihiin, laakiin iskaga soo baxa hawl baa idin sugaysa. waxa uu idinla iman doono ninka la yiraahdo xasana haddaan idin sii sheegayaa. waxa weeye isimadu ha ku kulmeen Jabuuti. kaka war kaka على خليف قليل wuxuu yiri in dalka la kala gooyo oo waqtiga xasan sheekhay 2013 xasan baa u sababa. الله يرحمه على خليف وحون وركاس قرب كان انتاسان كدافيا أزمدن إيا الدقال كان كقرحي صول إيا السناق إيا عين
aniga wuxuu iila mid yahay 1960kii markii qaaradii madoobay ay isticmaalka nasiib u heshay inay ka gelgelato calan saarto wali new colonialismkii bay ku jirtaa laakiin bandiirad bay saartay arrinka halkaa taagan in Cumar Geelena wax kama qaban karo cidda wax ka qaban kartaana waa xasanna gacanta wax uga jiraan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa ugaas maxamuud cali ugaas iyo waqtigii uu hogaaminayay waxba aniga iguma seegana hargeysay tageen wixii ay kala kulmeen warbaahinta kama ay sheegeen xasan bay u sheegeen waxaan ugaas maxamuud cali ugaas leeyahay isimadana la wadaag SSC waxaad kala soo kulantay boog aan daymayn lama dhayo minilku hoos buu jiraa SSC waa Soomaali calankii Soomaaliyeed bay huwan tahay haddii muuse diiday calankii Soomaaliyeed yuu khasbi karaa oo oran karaa waa xor dadku war muusow inta aad degtid waxaad tiraahdaa waan goostay simbo ama ciidanka ka saar meesha la yiraahdo gobolka Sool haddii kale dagaalkaagaa iska wad waritaana muuse iga gaarsiiyey alxaqiiqa aan isku soo wada duub subaxa isniinta ah isimadu waa inay ka soo baxaan xamar shaqaa sugaysa dadkii oo dhan baa sugaya shaki baa abuurmay si aan shakigu u sii weynaan oo aan dhexdeena laysku dirin iskaga soo baxa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa waa run warkaygaas xasan sheekh isagaa Sooliya Sanaag iyo Cayn u baahan Puntland ba maalintii la dhisayay cidna aqoonsi uma ay weydiin ku dhawaaqda maamulkiina xoreyntiinana wata الحقيقة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار